واحد يشكتي إن المكدلمان ديقنا كالصعدو هل كان على عقو قدرها رسمي واحد ما دي هرقيسة markay tagtay waxaan filayaa inaad in badan la jahawareersaneed sida aad u fahmi leedahay xaaladda ka dhaxaysa Rasmilays iyo Farxaan Yare haddaba caawa muuqaalkani ayaad kaga bogan doontaa gabi ahaantoodaba waxa isku hayaan iyo khilaafkooda halkuu ka bilowday haddaba Huda Amuun oo afka furatay iyaduna kana soo warantay arrimo badan oo iyadu laabta ku haysay haddaba saaxiibayaal muuqaalka faahfaahsan intaan ku soo gudbin halkani waa kanaalkan sixinta wararka aad ku cusub tahay subscribe saar sidoo kale gambarka heerka furo siina shargala muuqaalka la wadaaga asxaabtaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed رمضان كريم صاحبي يا شادي جوجتي إذا أويسي سواعدي واحد حمري ما أنتاجني إلهي نوائي كذا ما أنا أقول واحد يشكتي إن المكدلمان ديقنا كالصعدو هل كان على عقو قدرها رسمي واحد ما دي هرقيسة ما كي تكتي ترسم بوركي أي كوسو بحس فيسيه والله بس بور قلالاني وذاتيان كده قبل ريه هرقيسة بحضر بحرتي وقرية دي ايشوكتي لغا مضبا إيمان تدوبري عمل ايشوكتي سديد بري عد أما إيمان كالا لما دهين رسمي محاكو هالاي فاملك يا قرب تاقنا قعال كاي ما أنت كقصت ما أنت سيهد هرقيسة لبط اللابي إذين شوكتي عدنا وميسان تهين waxa dhacday saacadii u dambeeyay sida musalsalka ugu socday social media muuqaalo ay hawada isu marinayaan labada lamaane ee nolosha ku kala baxay ee Farxaan Yare iyo Rasmilays haddaba halka fanaaniin kale oo Soomaaliyeed ayagana la soo kala saftay fanaaniinta haddaba waxa dhacday in fanaanida Rasmilays ay la soo safarayeen fanaaniin dhowr ah oo ka yahay Sultan Saraar Guhaad sidoo kale ay isagana Farxaan Yare la soo safarayeen fanaaniinta kale aan nimca degan haddaba Huda Amuun ayaa iyaduna ka soo safatay dhanka iyo sidoo kale Rasmilays shaacana ka qaaday arrin la yaab leh haddaba saaxiibayaal waxa jirtay in fanaanada Rasmilays tan iyo markii Hargeysa la geeyay ama uu Hargeysa u reeyay Farxaan Yare ay la kulmaysay dhibaato aad u fara badan sidoo kale oo Farxaan Yare dhibaato aad u fara badan ku hayay fanaanada Rasmilays tan iyo markii uu Hargeysa dejiyay haddaba Farxaan ayaa afkiisa ka qirtay inuu Hargeysa ugu gacan qaaday Rasmilays balse arrinta ugu gacanta qaaday ay ahayd wax uu nin xaaskiisa ugu gacan qaado haddaba si kastaba ha noqotay arrintani ayaa hawada isku sii shareeraysa maalinta ka dambaysa haddaba muuqaalada dadku sugayaan ayaa ah muuqaalo ayagu iska duubeysay bareefadan iskaga duubeen oo anshax xumo ah balse daawadayaal kuwaasi inta aan la gaadhin waxaan filayaa in la kala dhex geli doono labadan ilmaane haddii ay arrintu sidan ku sii socotana waxay geli doontaa waali iyo sidoo kale maxkamad haddaba waxa dhacday in Huda Amuun ay shaaca ka qaaday in lacag iyadoo ay bixinaysay muddadii ay rasmi Hargeysa ku gaajeysneed ama muddadii 7 cisho ahayd ee Boorama ku gaajeysneed ay lacagta iyadoo ka amaatay haddaba Huda Amuun oo si dhow ay isugu dhow yihiin Rasmilays muddo badan ay saaxiib ahaayeen sidoo kale baraha bulshada marka ay soo galiyaan leefka ama ay soo wada fadhiisanayaan Instagram-ka ay inta badan leefkooda sheekaysan jireen noloshooda bareefadkana mar aan koolka kala gooyi jirin haddaba Huda iyo sidoo kale Rasmilays marka ay arrintooda halka mareysay Farxaan Yare oo isku ogaa saaxiibtinimadooda sidoo kale Farxaan uu ka warhayay in labadani ay saaxiib yihiin ayaa hadda waxa ay shaaca ka qaaday arrinta dhabta ah sidoo kale xogta rasmiga iyadu hayso ama ay ka ogtahay haddaba waxa ay sheegaysaa Huda Amuun in iyadu aysan mar qura khaldamin balse khaladku uu ka yimid dhanka Farxaan Yare hase yeeshee waxay sheegtay Huda Amuun in tan iyo markii Rasmilays ay Hargeysa u guurtay ay la kulmaysay dhibaatooyin istaba jooga oo isagu ku sameeyay ama Farxaan Yare uu ku sameeyay ku cadaadinaya Rasmilays haddaba rasmi oo tan iyo intaasiba cabanaysay arrinteeduna cirkas ku sii shareeysay balse aan laga hoos qaadin ayaa tan iyo markii ay Nairobi tagtay ka tagtay waxay soo furatay afka kadibna halkaas ay ka eedaysay haddaba Farxaan Yare oo muddo badan aamusnaa kana mid ah dadka afka gaaban leh social media soo global inta badan baan ku badnay social media ayaa indhaweyta afka furtay haddaba dadka intooda badan arrintan waxay moodayaan branki balse arrintan waxay noqotay mid xaqiiqo ah oo hadba hadka ka sii dambaysa cirka isku sii shareeraysa haddaba saaxiibayaal muuqaalku waa naga inta ee daawada Huda Amuun oo ka sheekeynaysa arrintaasi iyo sida ay wax u dhaceen in المكدلمان ديقنا كالصعدو هل كان على عقو قدرها رسمي واحد ما دي هرقيسة ما كي تكتي ترسم بوركي أي كوسو بحس فيسيه والله بس بور قلالاني وذاتيان كده قبل ريه هرقيسة بحضر بحرتي وقرية دي ايشوكتي لغا مضبا إيمان تدوبري عمل ايشوكتي سديد بري عد أما إيمان كالا لما دهين رسمي محاكو هالاي فاملك يا قرب تاقنا قعال كاي ما أنت كقصت ما أنت سيهد هرقيسة لبط اللابي إذين شكتي عدنا وميسان تهين